talyaanigu heshiis la galo isagu talyaanigu heshiis lahaa kolka heshiisku talyaaniga lahaa ayaa waxa dhacday mar inuu warqad u soo diray boqorka Cabdilla Xasan uu yiri bari u soo guur oo ay ku heshiiyeen gabadhna uu ka doonaa la yiri Cabdilla Xasan boqorka in taariikhda barnaamij gaar Cabdilla ka sameeyay baxeen taariikhda darawishta laakiin balkaan noo tiri gabaygaas hadaad ka hayso inay nooga tiri hadaad wax ka gabaygaas meelaha ugu quruxda badan waxa weeye markuu tilmaamayo horta gabaygu wuxuu ka warramayaa jiidaal oo maray iyo socodkii iyo dhibtii la kulmay waa gabay ajiib inta dambe uu ka sheegayaa in sida loogu ballan furay laakiin inta hore oo dhan wuxuu ka hadlayaa dhibaatadii uu socodka soo maray waana gabayada u xidhma u dhacaa saddex leeyahay Cabdilla Xasan gabaysu badnaayeen marka haddaan inta hore ku yar bilaabo wuxuu ka bilaabayaa Xuseen Dhiqlu kula qabsanaya raggii gabayada fari jiray Xuseen oo jikaar lama hadlee jaalkay baa tahay adaan iga jadeer wicin markuu jaahilkii diday jaan hooyan adaan qaban markuu jiitay gacalkay ragga gaala jeefaafi waa ahel jaxiimaade jahannamo inay galahayaan way ugu jaamaca ee adaa jamalka soo raray markay jararu guureen jinni weeye ruuxaan ahayn jaadka aad tahay dadka kale ka jeestayaan jaari ku ahay waxaan gaajo ka reebaya samanka jiilaale sagal jiidan caad jilicsan iyo jarar ilaacaya onko jawladaad soo jifraday jahada oo qiiqday jawjawlii xalay sidii jimin u guuxaya jirka daay jaleysyaha gugii harada oo jiifta jidhama afka wadahay jabadka ceegaaga jaqaqarida geedaha noqdiya xamuska oo jiiqle sidii jaawo dhana loo shubay baan jeelka kaabi inay waxaan kugu jalbeebinayaa jawhartii gabaye jalwiskayga maqal caawa waan jalaleebayay kaasi waa bilow laakiin inta dhexe ee uu ku tilmaamayo dhirta iyo bahalaha iyo waxa soo maray wuxuu yiraahdaa xagar jiqa telefoon iyo qudacina waxiira iyo jirdoolaha galoolka iyo sarmaan janafku xiimayo jimbac surad la jeeqays ku baxay jiica iyo siiqda jilab xanaf la jawdheer qalaalan jabe xanuun weyle jirmad qudax la jiqjiq waxmadu jeerin iyo yooco jirda badan jaroon iyo qaroon jaafil iyo jeerin jafka hawdka guuraha waxaan jar iska xuurayay wixii jaani caalaf low libax igu jibaadayay raadkii aan ku jeelaa wuxuu daba jadeemayay jaldaftiisa qoobka waxaan dib u jaleecayay jaajuuska geesaha waxaan jirayay ruuxayga waxaan jaamagaarkii cabsida jimanka buurayay wiil joof leh iyay waxaan jilif ku keenaashay jinna qaba shabeele wuxuu igu jimbaacayay juq waxaan u soo idhi dugaag jala butaynaya waa jiidaasha uu ka warramay sida uu dibta u tilmaamay inta waraabe iyo baahay iyo soo maray iyo markii dambe uu soo galay baad dugaagyo meel iska geed xaganaysay geed xaganaysay ya ajaayib aad farabadan aad u qurux badan markuu tilmaamayo jiidaasha uu tilmaamayo waa gabayada aadka u dareenka badan leh bal hadda ragga kale kuwa ka dambeeyay imka dambe ee maxayda anba jooga waka idinka waaweynaa haddana kuweed haddana ugu jeceshahay amba suugaanta Soomaalidu guud ahaanteedaba laba marxaladood baa ugu culus inta imka la xusuusan garan karayo inta badan waxa horta la xusuustaa waa 1700 wixii ka soo bilaabmay ayuunba inta badan taariikhda Soomaalida sida wax si wanaagsan loo hayo intaas jira marka labada marxaladood ee suugaanta Soomaalidu ugu culustay waxa weeye marxaladda imka aynu ka sheekeynay ragga sayidka raagooga salaan carabi qabaan bulxan cali dhuux daladka raggaas oo isku loodaha waa tiirarka ugu culus ee saaska u dhigay suugaanta Soomaalida cali dhuux isagana waxaan ka tilmaami karayaa kulley gabayo badan buu lahaa gabayadiisu inta badan cali dhuux marka taariikh nololeedkiisa aan dib u raacay nolol dhib abu ku soo koray aad u dhib badan taariikh nololeedkiisu marka taasaa saameyn badan ku yeelatay gabayadiisa marka kulley gabayadiisa imika waxaan ka xasuustaa adigu deetixii guba wuu lahaa dhowr taqood buu ku lahaa guba laakiin tix kale oo uu cabatin ahaayo mar uu ka cabanayay mala gabadhiisuna ay hadal ku tiri oo ugu calool celinayay gabadhiisa oo uu sheegayay reerahooda iyo sida ay imika aanay awood badan iyo waxa uu lahayn oo dhulka ay degi jireen iyo wixii ay ugu tageen waxa kamid ahaa gabay uu lahaa qoda dhagaxlay qooriga hayiyo tuman qolaalkiisa qurmis iyo qarhor weyna iyo ilaahi qaansoole qotonkii yamays iyo gabribaan qarad ka foofayna sanga qaarar weyn iyo fardu kama qaraabtaane qarankii intaa wada degi jiray baan quri ka noolayna caawana qudhaydiyo cabdoo qaawan baa hadha ee naag yahay adduuniga qatalan quusna waana haye qoonkaad ogeyd baan la shiray ama si qorwa waa gabay calaacalaho ka taabanayay waa gabayadiisa kolley kuwa ugu wanaagsan adigu waxoogaa baan isagana adigu nimankan aan sheegay in badan gabayadooda waxoogaa in badan baan ka hayaa nin walba gabayadiisa laakiin waa tusaalayaal intaan ka soo qaadi karo su'aasha Cabdalla ku weydiiyay dadka imika dadkan dambe waa halkaan ka sheegayay ee suugaantu labada jeer ay booday mar waa markaa hore ee ragga hore marka labada soo boodayna waa raggan adigu kaba soo bilow lixdanaadkii ilaa imika raggan ay ugu cadcad yihiin hadraawi iyo ninka la yiraahdo Sangub iyo gaariye iyo Abdulqaadir Xirsi Yamyam iyo Doodaan iyo waliba Doodaan iyo raggani waxaad moodaa in faraq u yar dhaxeeyo
anigu raggan waxaan idhaahdaa waa heesaa waxaad moodaa inaanay gabyaa toosa iyagu aanay ahayn laakiin gabyaaga tooska waa doodaan isagu wuxuu adeegsanaya waa gabay nimankana jiiftay adeegsadaan inta badan jiiftaduna waxay ku jirtaa badda heesta laakiin iyagu waxay kaga duwan yihiin gabyaaga dee waxay samaynayaan riwaayad dee sugaantii oo dhan mid walba wax ka wadato iska da bandhigdana iska bandhigba waa bandhig marka qarnigan imaka doodaan isagoo godka gabayga unbuu isticmaalaa qudheedu ma maqal weli isagoo god kale ka tirinaya laakiin nimankan godadkii kale heesta un loo yaqiinay heesaha badana yay nooleeyeenoo ay sidii gabay oo kale u isticmaalaan hees hawleedkii oo kale soo nooleeya hees hawleedkii oo kale soo nooleeya soo saareen laakiin dee sugaantu marka hore sideeday u kala sarreysaayo heesta iyo gabaygu marka hore xubin ahaan yay kala sarreeyaan gabaygu xubin ahaan buu ka sarreeyaa sugaanta kale ugu sarreeya marka adraawi oo kale in waxoogaa ka soo qaadano adraawi oo kale barnaamij badan oo sirta ereyga la yidhaahdo laga sameeyey oo barnaamijyo kale ka dambeeyeen haddana kolley midaan maalindhooda tirinaysay waraabaha oo kale u soo qaatay tilmaam wuu leeyahay adraawi wuxuu leeyahay inta badan dee wuxuu had iyo jeer sugaanyadeedoo dhan waa iska leedahay qisasyadii hore dhacay in wax laga soo qaato marka inta badan waxyaabahu soo qaato waxaa ka mid ah matalan Soomaalidu waa tan hadallada la baxday tirada waxa waxa tiri waraaba sidaa yiri waxaasay Soomaalidu tiraahdaa marka waxa jira toddob yar oo ka sameeyay waraabaha oo leh waa cabir la sameeyo waraabaha yiri aniga iyo xoolaha dadka mushkilad baan kala haystaa aniga xoolaha mushkilad baan kala haystaa anigu xoolaha ma cuno marka hore cunis inaan cuno uguma talagelin laakiin markaan arkay iyagoo meel marayo baadiya ayaan sadaa war xoolahaas kulay dad muslim ka soo lumeen u celi dabeetana wuxuu xooluna dad marka horeba shaki iyo dad ma iga qabaan dabeetana wax xun baa laga dhaafay marka horeba codad bay iga qabaan dabeetana marka arkaan buur anoo soo socda ayay carara dabeetana waxaan saawar wax ka cararey ka daba tago kulay cidlay ku lumayaan soo qabo dabeetana wuxuu waan eriyaa deeb wuxuu markaan soo gaadho dee la gacmo malihaan ku qabtee micidi iyo ilkihii ma saayar qabo meeshii aan qabtay baa isoo go'ay dabeetana neefku wuxuu intuu dhaco ayuu dhaawacmaa dabeetana wuxuu markaan arkay neefkii oo dhaawac oo dhiig daay maxaa laga dhigay dee waxaan sahabul warkan reerkii laha haatan dee seegi dee adigana uu ku seegan bale iska hilmayso sidaasaan dabeetana ku cunaa buuri anigu marka hore ku talagal ma aha uma cunaa kolka sheekada uu adeegsaday marka sheekadaas uu adeegsaday oo wuxuu tilmaamayaa siyaad barro oo waqtiyadii waxaan ma dhawristeetanaadkii bay maastan u tiriyay marka siyaad barro oo buu tilmaamayaa leh halkii waraabaha ku jiro leh anigu xumo ismaan lahayn dee dalka hagaajiyo baan islahaay dadkii baa u qaatay dabeetana wixii inaan xumaynayo marka siyaad barro wuxuu leeyahay maqal waxaan ku haystaa muslimka iyo waraabaha mashaqada dhex taaliya madmadowga kala galay inay tahay ismaan dhaaf mudaaga xooluhu marka ay la kulantee muuqiisa aragtay lagu heeda maasha isna wuxuu majira uga daba maleegtaa cilmiga baadida isma qiiqdiisa iyo mitidka iyo dadaalka hadba muruqu siima bal muxuu sameeyaa ilkaha u midigo micida u gacane ila wax kala ma haye micida u gacana wax kala ma haye marka waa meelo ka adeegsan muxuu sameeyaa micida u gacana dee ila wax kala ma haye ilkaha u midiga doodaana dee wuxuu leeyahay gabayga halista ah aad maqashay gacalkay mooday garnaqsi baa la kuwa ugu haleysaysan garnaqsi bal waxoogaa naga maqshiitaa in iska roon wuxuu tilmaamayaa hadii isna waxaan filaya waqtiyadii siyaad barre weeye marka dee nin buu tilmaamayaa isna wixii aanu tirayay isagu ima tirin geedkii aan korayaba ninkaan bari gantaalay isna laanta igu goynayay baan gacalkay moodaa